muddo waxaan isku horfadhinay dhulkan u dhaxeeya degmada Matabaan iyo degmada Beledweyne ilaa degmada Xaas oo qowdalaha ka waday dagaalka u dhaxeeyay ciidamada Liu Police oo garabsanaya ciidanka Ethiopia iyo Al-Shabaab oo weji kala yeeshay waxaana dagaal aad iyo aad u qaraar isla markaana xoogan ciidamada Ethiopia iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed xilliga kani uu ka soconaya deegaanka Coomaad ee ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya kadib markii ciidanka Ethiopia xasuuqeen dad shacab ah maxaa keenay xilliga kani in ciidanka Ethiopia ay ku soo duulaan dhulka Soomaaliyeed isla markaana ay damac uu ka soo galo halkaasna dagaal xun uu ka socdo oo u dhaxeeya ciidanka Ethiopia iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya warbixintan oo faahfaahsan ayaan idin hayaa daawadayaal marka horese intaan u gudagelin muuqaalkan oo dhameystiran waxaan ka dalbanayaa inaad YouTube-kan hadaad ku cusub tahay subscribe aad inoo saarto adigoo mahadsan si aad joogto ula socoto warbixinada ka jira dunida caalamka iyadoo saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha dagaalka Ethiopia ee ka soo kacay goday ay duqeymaana kala go'ol lahayn ka geysanayeen deegaanka Coomaad oo dhaca xadka u dhaxeeya gobolka Hiiraan iyo deegaanka Soomaali galbeed ayaa waxa xasuuq ay diyaaradaha dagaalka Ethiopia u geysteen dad xoolo dhaqataa ka carooday maamulka gobolka Hiiraan waxaana gudoomiyaha gobolka Hiiraan ninka lagu magacaabo Cali Jeyto Cusmaan amar siiyay ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka oo dhawaana laga soo daadgureeyay magaalada Muqdisho kuwaas oo hadda dagaalka ku biiray isla markaana la isku adeegsanayo dagaalka xilliga kani ka socda deegaanka Coomaad hubka noocyadiisa kala duwan waxa jira qasaaro soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi waxa sidoo kale jira gurmadyo xoog leh oo dawladaha Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya dhinacooda ka kala imaanaya ee gaaraya deegaanka Coomaad isla markaana ku biiraya dagaalka u dhaxeeya labada dal ee Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya Ethiopia ayaa horay u sheegtay in ay aagan argagixisada ka samaysan doonto gudaha Soomaaliya taasi oo ka careysiisay dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana bilowday dagaal ka duwan kan u dhaxeeya Ethiopia iyo Al-Shabaab iyadoo cabsi laga qabo inuu qarxo dagaal weyn oo u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa iyadu ay waday daandaansi xoog leh oo ay markaasi u geysanayso dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay soo dhoobtay xadka u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ciidamo lagu qiyaasay tiradooda 500 oo kun oo ciidan military Ethiopia ah kuwaas oo ay rabto inay ku boobto dhul Soomaaliyeed oo ku yaala xadka ay labada dal wadaagaan Soomaaliya iyo Ethiopia shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dunida dacaladooda ayaa arrinkan si aad ah uga carooday iyagoo dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dalka ee ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in la iska celiyo cadawga Ethiopia oo isagu markaasi ah Arsidon oo markaasi aarsanaya dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia sanadii 1977 ee jab xoog leh lagu geystay Ethiopia dhul fara badan laga qabsaday walow ugu dambeyn dawladii markaasi Ethiopia jabisay inaga gacanteena ay sababsatay oo maanta wadanka dawlad awood badan aysan ka jirinin Al-Shabaab muddo waxaan isku horfadhinay dhulkan u dhaxeeya degmada Matabaan iyo degmada Beledweyne ilaa degmada Xaas oo qowdalaha ka waday iyo meesha loo yaqaan Jiirta Qabno ama Bacda marka ciidamada ku gudbay dhinaca Bakool xigta xalayna waxay jireen anteenada Jiracle dhinaca Beledweyne ay magaalada Xigta halkaas ay ku gudbeen oo xaala ay halka ka galeen waxay galeen dhagaxa la yiraahdo Laasqurun yani qaabka ay xalay u gudbeen iyo qaabka anteenada u dabiyeen iyo haddaan si kooban kugu sheego waa inaad tirada rasmiga ah ma hayno numberskooda laakiin qiyaasta markii noo sheegay dhulka ay mareen macnaha ay lugeynayeen markii aan dadka weydiinay intee in la eg qiyaasta ilaa 200 oo nin ay ku dhow yihiin isbeedka ay mareen marka noo sheegay dadisinahan inta aan khibrad ciidan u leenahay ka eegnay marka ilaa 200 oo nin waa nimanka Laasqurun kuwa hadda aan ku sheegay dhagaxa Laasqurun ku jira hal meel bay ka gudbeen waxay ka gudbeen soona burcandada ay ka gudbeen waadiga oo xaalay halka ka jareen dhagaxa Laasqurun ay ku jiraan waxaan hadda ilal xodogaalihi ii sheegeen ciidamada Liu Police iyo ayagu inay isku farasaareen dhagaxa Laasqurun annagana ciidanka guutada shanaad oo nooga dhow eedida dagaalku ka dhacay Korneel Baaka ayaa waqti dhow xiriir la sameeyay in ay yeeshaan iskaashi ayaga ciidamada Liu Police kuwa cusub iyo kuwa sidaan soo fadhina
xalay oo dhan waanu sarkaynaba ilaaladooda maantadan xitaa annaga taankeennaa baxay wuu sheegay dhaqaaqooda inta ay leeyihiin iyo meelaha agagay joogaan marka ciidamadan ay dhoolow dhinacay ka keeneen kuwan hadda gudbaya kuwa bakool ka gudbayna ee koonfurta soomaaliya meelahaas xagka kenya dad ay tababareen wax uga soo saareen information noocaasana soo gaaray laakiin kuwii hadda annagu aanisayna sidii bay u joogaan waa kuwa horle kuwa gudbaya taa waxaa su-aashada ka jawaabi kara al-shabaab sababtu tahay annaga shiddada ay nagu hayeen haddaan si kooban kuugu sheego al-shabaab waa fayraska nolosha wuxuuna ku fidayaa gobolkao dhan ama east africa o dhan uu ku fidayaa etoobiya uu ku fidayaa jabuuti uu ku fidayaa uganda uu ku fidayaa kenya uu ku fidayaa kenyay galena waa ogtihiin haddana etoobiyay ku socdaan annaga wax barabareena ma nagu keenaysa ciidamada aad sheegaysa amis loo bixiyay fariisimahooda ay isku ilaaliyaan hadda ka horna media waan ka sheegay fariisimahooda ay isku ilaaliyaane nalama faltamaan aniga sarkaal dagaal ma ay hadda wakiil shacabaan ahay waxaana ku jiraa buuraha u dhexeeya degmada matabaan iyo degmada beledweyne iyo tan maxaaseed bil iyo dhowr cishaan kasoo maqanayo xafiiskii anigaan fadhiyey anisoona beledweyne iyo waxay isku ilaaliyaan ceer jaalle marka waxba nooga yaraan mayaan hadda saaka haddii guulaan waxaa falsamayaa waa shacabkii waxaa falsamayaa waa ciidamadii soomaaliya waxaa falsamayaa waa qof aan soomaali ahayn oo xabad ku yiri shabaab ma jirta maanta qof aan soomaali ahayn marka inay guulaan iyo inay joogaan waa wax saamayna oo ay nagu samayn kartaa ma jirtano al-shabaab horta muddo waxaan isku hor fadhinay dhulkan u dhexeeya degmada matabaan iyo degmada beledweyne ilaa ee degmada xaas oo qowgalaan ka waday bukufe eeg iyo meesha loo yaqaano jiirta qabno ama bacda marka ciidamada waa ku ka gudbay dhinaca bakool xita xalayna waxay jireen anteenada jiracle dhinaca beledweyne ayay magaalada matabaan xigtaa halkaas ayay ka gudbeen xaala iyo halkaa ka galeen waxay galeen dhagaxa la yidhaahdo laasqurun yani qaabka ay xalay u gudbeen iyo qaabkay anteenada u dabiyeen iyo haddaan si kooban kugu sheego waa inahaas tirada rasmiga ah ma hayno numbariskooda laakiin qiyaasta markii noo sheegay dhulka ay mareen macnaha ay lugeynayeen markii aan dadka weydiinay intee in la eg qiyaasta ilaa 200 oo nin ay ku dhow yihiin isbeyska ay mareen marka naloo sheegay dadiskin ahaan inta aan khibrad ciidan u leenahay aan ka eegnay marka ilaa 200 oo nin waa nimanka laasqurun kuwa hadda aan kuu sheegaya dhagaxa laasqurun ku jira hal meel bay ka gudbeen waxay ka gudbeen soona burcandhala ayay ka gudbeen waadiga oo xaalay halkaa ka jareen dhagaxa laasqurun ay ku jiraan waxaanan hadda ilal xodogaalihi ii sheegeen ciidamada new police iyo ayagu inay isku farasaareen dhagaxa laasqurun annagana ciidanka guutada shanaad oo nooga dhow eedida dagaalku ka dhacay kordheel baa ka eegaan waqti dhow ayaan xiriir la sameeyey in ay yeeshaan iskaashi ayaga iyo ciidamadaas new police kuwa cusub iyo kuwii sidii baan soo fadhinaa xalay oo dhan waanu sarkaynaba ilaaladooda maantadan xitaa annaga taankeennaa baxay wuu sheegay dhaqaaqooda inta ay leeyihiin iyo meelaha agagay joogaan marka ciidamadan ay dhoolow dhinacay ka keeneen kuwan hadda gudbaya kuwa bakool ka gudbayna ee koonfurta soomaaliya meelahaas xagka kenya dad ay tababareen wax uga soo saareen information noocaasana soo gaaray laakiin kuwii hadda annagu aanisayna sidii bay u joogaan waa kuwa horle kuwa gudbaya taa waxaa su-aashada ka jawaabi kara al-shabaab sababtu tahay annaga shiddada ay nagu hayeen haddaan si kooban kuugu sheego al-shabaab waa fayraska nolosha wuxuuna ku fidayaa gobolkao dhan ama east africa o dhan uu ku fidayaa etoobiya uu ku fidayaa jabuuti uu ku fidayaa uganda uu ku fidayaa kenya uu ku fidayaa kenyay galena waa ogtihiin haddana etoobiyay ku socdaan annaga wax barabareena ma nagu keenaysa ciidamada aad sheegaysa amis loo bixiyay fariisimahooda ay isku ilaaliyaan hadda ka horna media waan ka sheegay fariisimahooda ay isku ilaaliyaane nalama faltamaan aniga sarkaal dagaal ma ay hadda wakiil shacabaan ahay waxaana ku jiraa buuraha u dhexeeya degmada matabaan